meel walba oo ay degto Soomaalida maanta waxaa loogu dabaaldegayaa guushii xulka qaranka Soomaalida ay ka gaareen xulka qaranka Uganda. fadlan haddaad ku cusub tahay like noo saar, subscribe destina share graysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. ciyaartoyda xulka qaranka 17 sano jirada Soomaaliya ayaa maanta waxay guul ka gaareen xulka qaranka Uganda. ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican iyadoo taageerayaasha Soomaaliya ay ku amaaneen bandhiga qurxoon ee ay garoonka la soo galeen 90 daqiiqo ciyaarta iyo waqtiga dheeriga waxay labada xul ay isku mari waayeen barbardhac hal waxaana rigoora 8 iyo 7 ay ku badisay xulka qaranka Soomaaliya. ciyaartoyda Soomaaliya sanadkan waxay wacdara ka dhigayaan tartankan waxayna sanadkan muhiimad gaar ah siinayaan sidii ay u soo qaadi lahaayeen tartankan oo sanadkan martigelisay dawladda Itoobiya. Soomaaliya ayaa hore waxaa looga bartay in ay guuldarooyin ay kala soo laabtaan ciyaaraha qaaradda Afrika oo goolal badan lagu soo garaaci jiray, waxaana haatan xulka qaranka Soomaaliya laga dareemayaa isbedel xoogan oo ay ku soo qaadi karaan tartankana. Soomaaliya finalka waxay sugi doontaa kii soo baxa xulalka Koonfurta Suudaan iyo Tanzania, waxayna Soomaaliya rajo fiican ay ka qabaan in ay ku guuleystaan tartankan sanadkan. haddaba yaa jeclaan lahayd inuu soo baxo xulalka Koonfurta Suudaan iyo xulka Tanzania?